السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا أنيغا إنكا شيك عصب ما أنت شيك وحانو وضع إن شاء الله بإذن الله تجارب الحياة نولشا برودك أما نولشا تجربة أو نولشا وصابسن يعني وحيوات في لهينين وما أنت تربينا برويسي أم خوف ولالكا هور أسو سمية وكسو دعي حتى في عناد أم حتى حماد so sidada adduunyadan lagu sheegayo qofa marka god ku soo dhacay ama qofa gacan ka soo jabtay lug ka soo jabtay ayaad maqlaysaa sababtana markaad fiirisid sababahaas markaad maqashid mar walba waxaad try gareynaysaa inaad iska ilaalisid taasiyati inaad ku dhacin adiga okay noloyinka nololka waxa ka mid ah ugu xanuun badan ama uga la dhahayo qof walba shoog ka qaadayo waa nolosha oo arooska iyo nolol wadaaga يعني markaad aroos galaysid oo qof aad jeceshiin ama qof aad heshid oo nolosha kula wadaago sometimes waxaa dhacdaa qaladaadka badi dhacayo qofka soo si fiican isku baranin oo maanta la galayo barowal dhahaa maanta qofkan way waa baroweyna soo si fiican isku baranin maalinta ugu horeysa laga yaabaa in hadlooyin macaan badan as dhaho ama inaad ka qarciyo ama iska dhaadhiciyo gabadha mayagana gabdhahena sideedaba iska maskiin way qalbi jilcayiin soo marka qofkii wuxuu naska dhaadhiciyo ma iska dhaadhiciyna mar walba ay ku qanacda hadalooyinkiisana way iska raacaysaa wixii yahay gadaal dhan wax ay u ogtahay ama noloshiisa fikrad dhan ay ka hayso saas weyn ab yaraatee ma jiro okay maanta waxaa dhacday qiso gabar carab ku dhacday ayaa ka sheekeynaysa marka ila soo wadaagtay oo raba inaan ila soo wadaago way ka sheekeynaysaa nolosheeda tajribada dadka kale si iska ilaaliyaan dhacin oo kale okay qisa cajiib ah ahayd marka qisa cajiib ah nolol bro ay sameysay iskoolka waxay bilaabanaysaa meesha waxay ku barato oo jaamacadda waxaan ka bartay dhahday ayaa waxa jooga wiil oo aad qurux badan maasha Allah oo heybadiisa dad aragtid soo jiidasha leh wajigiisa weegas u hadlaayo weegas u labisanayo aad qof walba yani gabdhaha dhan ka daba dhacayaan ayaa halkaas wiil منافس ملهن ماشي markaan dhahay منافس ملهن waxaan ka wadaa macnaa wax oo asiga oo levelkiisa soo dhaweynaa xataa kuma jiro meesha jaamacadda soo marka wiilkii mar gabdhaha dhan ku dhacay way daba dhacan wiil qurux badan oo heybad leh oo shakhsiyadiisa aad u adag macnaa heybadiisa iyo shakhsiyadiisa way qatarsan tahay macnaa soo jiidashiisa aad u weyneed marka gabadhu waxay dhaysaa gabadh badan gabadh walba maanta oo wasla hadlo wasdhaho haye gabadhii markii la sheekaysto xoogaa gabadh khalaas way ka daba dhareeraysaa wiilkii sidii ay ku raacaysaa marka hooyadiisa u geynaa mar walba gabadh walba isbartaan hooyadiisa u geynaa hooyadiis marka u geeyana waxbay ka soo saaraysaa su'aalooyin yaryar markay weydiiso ma ku qancayso waxay dhaysaa gabadha ma ku anficayso wiilkayga ma anficayso gabadhan gabar kale gabar saddexaad soo maanta nasiib waxaan la yeeshtay ani firkayga inaa ay dhahday gabadha inaa oo wiilka ay la hadasho iyadoo aad ugu faraxsan markuu dhahay hay way sheekaysteen hooyadeen ku geynaa u dhahay ana waa ogaay u dhahay marka way dhahday mar walba anu waan ogaay baslan mar walba gabar ay sheekaystaan ama wada hadlaan waa hooyadiisna u geeyaa soo marka hooyada ay geey okay waa dhahay hooyadii markiis ii geeyay ay aragtay khalaas way aqbashay waxay dhahday okay waa wiilkayga inoo ku arooso aan raali ka ahay laakiin gurigaan waa ogtahay gurigii ay tustay hal qol laga tusay bas qolkan kale dhacday shaqo kuma leedahay mana ka soo dhawaa kartid agagaarihiisa qolkan ma ka soo bixi kartid qolka ku jira waqtigaas masuul gaar oo jaamacadda ka soo baxday barashada qolka galaysa absolutely ma ka soo bixi kartid qolkan shaqo kuma leedahay xatii maqsuulid soo baxday maqsuul soo doonatid qolka ma ka soo dhawaa kartid hal qol jira absolutely close danger ma ka soo dhawaa kartid okay waa yahay shaqo ma kuleeyay aniga odayga ninkayga qofkaas guursanay ayaa shaqo kuleeyahay gurigay qolkayga ma kifaay way barashadeeda sidii markay dhacday ayaa ma ka soo wareegatay mar walba markaa hurdo seexday dhacday hurdo cod ayaa maqlaa marka unug yar qaylinay ama cod dumar oo halaal qayli ku jirto meesha oo qasab waxa la dhahay wax qasab ama oo kale ayaa maqlaa dhacday soo mar walba tiin aan maqlo ka horna intii qayligaas ama buuqaas aan maqlin ayaa intaan jiifo korkeyga wax la soo joogsaday oo la kormeerayo inaan make sure lagu sameynayo la hubinayo
inaan seexday ama inaan soo jeedo ma soo jeedaa ama waan seexday sidii marka qofka uu make sure sameynayo dhar labis madow oo labisan ayaa soo kor joogsana waa dareemi karaa dhahday markii indhaha khafiif soo feedo waa la kor taagan yahay laakiin waxaan iska dhigaa nin hurdaaya dhahday marka waa la kor taagan yahay markii laga dhaqaaqo xer kadib waxaa maqlaa marka khaylidaa bilaabayso khayliyaa maqlaa waxyaabo oo macnaha oo halqasab ama cunug yar may habar may naag may gabar may makaasina dhahday Soomaali maalin ka mid ah marka waxaan isku dayay dhahday inaan ogaado qayladaas iyo meesha ka imaanayso sababta u dhacayso inaan ogaado marka isku howshiisaan galay okay dhahday howshiisaan galay waxaan markii oo la soo kor joogsaday qof jiifa sidii iska dhigi la iska dhigay waa laga dhaqaaqay markii la dhaqaaqay albaabka lii xir laga tagay ayaan soo tartiib soo taagsaday waan soo dabagalay intuu tagaa qofkii aan dabagalay asiga mii jeedo qolkii oo liga mamnuucay oo la dhahay qolkan ma kasoo dhawaa kartid shaqa musku leedihiin absolute qolkan ma kasoo dhawaa kartid qolkii la dhahay ayaa la galay waa la soo xirtay qolkii marka mugdi waaye mugdinimada muxumo yani shumac wax shishidanaysa waaye hoos albaabka jeexa ugu dambeeya hoos ayaan ka dareemaya dhaadeen meesha wax shidan wax shumac waxyaabaa shidan laakiin qayladana meeshay kasoo yeeroosaa waa maqli jiri oo haween walbaa maqlayna meeshay kasoo yeeroosaa marka waxaan sameeyay dhaadeen in albaabkii u dhawaaday anoon li dareemin waana baqaa albaabkii u dhawaaday dhahday jeex hoos meesha ugu dambeeyo oo albaabka ugu dambeeyo hoos halax furan jeex furan ayaa markaan tanay gareeyay dhulkina madax dhigto oo jeex aqalka hoos wixii dhacooyo ama qaylidaas buuqas sababteeda iyo maxay kimaanayso iyo mugdiga iyo aftiinkaas yar soo baxayo maxaa waay ina ogaada marka xoogan saaray dhahday meeshaan tagay madaxiya dhulka dhigtay yani inaan dayo meeshaan fiiriyo absolutely oo ina qoysi wax ma arkayo waxaan rabay inaan arko waa arki waayay dhahday marka because madax ma ka dhulka jeexaas idna aragtid way dhibay ugu noqotay dhahday marka waa fikri markii codaan maqlay inaan la soo socdo albaabka la soo socdo inna la yimaado waa soo joogsaday waa soo carar qolkeyga ayaan ku soo laabtay marka la dhaafiray marka qolkeyga ku soo laabtay dhahday marka qof jiif qolkeyga markii waa la soo dabagalay because wax bay dareemeen qolkeyga la soo dabagalay dareemaysa qolka la soo galay agteeda la soo joogsaday inaan jiifo inaan soo jeeda make sure la sameeyo qof jiifa iska dhigay talo marka sheekada bariyaan oo dhameystirayna insha Allah biidnillah maanta haafkaasaan ku joojinaynaa because waqti badanana sii geliyo daqiiqooyinkaas in xalahaan ka sii badato marabi insha Allah haafkeeda kale bariyaan oo dhameystira aniga iniga soo naqasho kale iyo sheekadan maanta aan wado dhameystirka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh